sida laga hadlayaba xafladuna macnaheedu uu yahay tiknoolajiya laga hadlayo shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxay ahayd shirkadii ugu horeeyay ee taabageliyay tiknoolajiyada wadanka waxaan u maleynayaa dad badan inay xilliga xasuustaan 2002 ayaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud markii ugu horeysay waxay hirgelisay GSM oo ah meesha uu ka ambaqaaday isgaarsiinta casriga ah waxay ku sii jirtay inay hormariso tiknoolajiyada wadanka qaybteeda ka qaadato 2004kii waxay hirgelisay waxa loo yaqaano 3G oo ah hab kale oo casri ah oo internet ah oo wada ogtihiin wada xasuusataan ilaa 2009kii iyo 10kii ay aad xoogeeda u geysay in wadanka laga haqabeeliyo internet 2002 alifkii waxaad ogtihiin in la hirgeliyey fiber internet wadanka Soomaaliya waad ogtihiin in maanta marayo meel lamida wadamada caalamka waliba uu ka horeeyo wadamo badan oo Afrikaan ah sababtaasna ay shirkadaha suurtageliyay ay ugu horeyso Hormuud Telecom tiknoolajiyadaas maanta waxay baraysaa 4G internet in shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay macaamiisheeda iyo ummadda Soomaaliyeedba ay ugu deeqdo waxay maraysaa fiber internet oo home and office level ah in meel walba ay dhigtay waxay awood u yeelatay inay infrastructure ay geliso aad u ballaaran magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka waxa taas dhinac socotay tiknoolajiyada casriga ah ee mobile money transfer-ka oo EVC Plus-ka oo runtii la dhigi karo dadka Soomaaliyeed aad bay ugu diirsadeen oo iyaduna shirkadda isgaarsiinta Hormuud u suura gashay inay hirgeliso ilaa haddana maaragtay ay ku howlan tahay sidii ay u ballaarin lahayd adeegsiga tiknoolajiyada waxaan rabaa wax walba waxay ku suura galaan bacdallaahi ka soo dadaal iyo juhdi waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo injineerada Hormuud Telecom oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud runtii dhaxal siiyay inay ka mid noqoto shirkadaha ugu sareeya ee tiknoolajiyada ka shaqeeya injineeradaas oo leh khibrad iyo waayo aragnimo iyo aqoon waxaan leenahay marka insha Allah ummadda Soomaaliyeedna iyaduna inay kalsooni buuxda ay ku qabaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay mar walba u taagan tahay haqabtirka iyo inay mar walba ay ummadda Soomaaliyeed ay facooda caalamka ah xagga tiknoolajiyada ay la heer noqdaan waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo insha Allah waqti aan dheerayn waxa Hormuud Telecom u qorshaysan inay wadanka keento 5G oo ogtihiin inuu yahay kii ugu dambeeyay hadda casriga ah hadda caalamka meelo badan oo noolin waxaan insha Allah ku dadaali doonaa inaan gacan siino cid walba oo tiknoolajiyadaas ka shaqeynaysa sidaan sponsor uga noqonay Somnog oo kale cid kasta oo tiknoolaji ku shaqeynaysana sidaasaan sponsor uga noqonaa waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo walaalahayna maaragtay Somnog oo runtii iyaguna dadaal badan iyo tiknoolajiyada inay ziyaado dhanka sukaanka iyo network-ka aad uga shaqeeyay waxaan rabnaa inaan sidoo kale aan u mahad celiyo ragga Somaliland iyo intii isku hawshaan annaga insha Allah wadi alla yiraahdo 2 sano waxaan ka haynay sponsor haddana insha Allah tiknoolajiya kasta iyo meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed social responsibility-geena wuxuu nafarayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay wax horumar ku sameynayso inaan qayb ka noqono insha Allah waan ku dadaali doonaa. Hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.